munaasabadan ayaa lagu shaacinayay wajiga labaad ee dhismaha garoonka magaalada Boosaaso waxaana muhiimada koowaad la siinayaa dhabaha ay diyaaraduhu ku cararto baakinka gawaarida iyo wadada soo gasha garoonka oo laga dhigayo laba seed iyo silika garoonka oo dib loo habaynayo maareeyaha garoonka magaalada Boosaaso Maxamed Saciid Foodcade ayaa ugu horeyn ka warbixiyay dhismaha wajiga labaad ee garoonka. I will not go into details, but the phase 2 which will start immediately, what I've said, we already have the contracts and we have already paid the money. So the works will start now. Phase 2, we have almost... waxaan xafladaan isugu nimi inaan loo qabtay nuxurkeedu yahay in la bilaabayo dhismihii labaad fayskii labaad ee garoonka iftitaaxeedii agaasimaha shirkadda caalamiga ah ee gacanta ku haysa garoonka magaalada Boosaaso ee TASL iyo injineero ka socda shirkadda dhisaysa garoonka magaalada Boosaaso ee COCC ayaa ka hadlay. The project will have two phases. The phase 1 has already started. The first phase will include the security perimeter fence, the extension of the runway, airport amenities, oo hadda xogaa jilabsan baa dibaaben gacan u aircraft diyaarada wadada ay ku cararto oo hadda aad u kooban waxaan ku dari doonaa 800 mitir si diyaarada ugu waaweyn ay u awoodi doonaan inay soo degaan wadada isku xirta albaabka ugu horeeya laga soo galo airportka ilaa halkan aan joogno wadadaas waxaa la sameyn doonaa laba sayid iyadoo ah qurux badan kadibna waxaa la hagaajinayaa parking gawaarida Bosaso. Rajawidi, I'm design engineer for COCC. Yeah, Assalamu alaikum for everyone. We mobilize the design team to start the works. Up to now, we almost completed the survey. Up to this morning, we are still continuing to take more details for the airport and the access road, which is part of the project. And in the past week, we also degmada Boosaaso Cabdiqani Axmed Ismaaciil qaar kamid ah isimada dhaqanka ganacsato siyaasiyiin iyo agaasimaha guud ee wasaaradda duulista hawada iyo garoomada Puntland ayaa soo dhaweeyay wajiga labaad ee dhismaha garoonka magaalada Boosaaso. Waxa inoo bilaabanaya runwayga Boosaaso extensionkiisii wadadan airportka soo gasha oo laga dhigi doono wado balaaran oo magaalada ilaa airportku laami noqon doonto airport cargo ka soo dego diyaarad walba noocay doontaa ka soo degi kartaa garoonka Boosaaso abagal iyo bilow hor leh oo la bilaabayo fayskii maalgelin balaaran oo lagu sameeyo garoonka oo laba fays ah wuxuu sii noqonayaa garoon intii hore ka sii caalamisan waana wax Ilaahay loogu mahadiyo waxa ka soo degaya diyaarada waaweyn baa isticmaalaya waxa maanta sharaf noo ah inaan u wada joogno daafurkii feeskii labaad ee airportka horumarintiisa taasoo ay ku xigto feeskii saddexaad xalfadan waxaanu ka sii farxi doonaa oo aanu dabaaldegyo gaar ah idin sameyn doonaa markaanu aragno waxqabad ballan qaadayna inaanu dhiiri gelino garab istaagno la shaqeyno midda kale marka la leeyahay garoonka Boosaaso ma ahan garoonka Boosaaso waa garoonka Puntland waa garoon Soomaaliyeed marka waxa la rabaa ganacsatada meel kasta ay joogto Puntland meel kasta ka joogto inay ka qayb gasho horumarkiisa oo aad ugu faraxsanahay oo muxuu ahaa nolosha dadka iyo dalka waxa weyn ka taraya iyo xiriirka adduunka intaba waa arrin muddo badan la wada sugayay in garoonka la waasiciyo qaybihiisa kala duwan si uu noqdo mid caalami ah hadda wuxuu noo sheegay in 800 oo mitir lagu daraayo runtii waa arrin aad u wanaagsan gudoomiyaha gobolka Bari Cabdisamed Yuusuf Abwaan iyo wasiirka wasaaradda duulista hawada iyo garoomada dawladda Puntland Ilyas Cismaan Lugato ayaa dhankooda ka hadlay heerarkii kala duwanaa uu soo maray dhismaha wajiga labaad ee garoonka magaalada Boosaaso. waxaan rajaynayaa markii hadda fayskan inoo dhismana inaynu insha Allah London iyo Mareykan iyo Germany iyo ka degi doono haddii Allah horumarku waa socdaa waxaan aad ugu mahadcelinayaa madaxweynaha dawladda Puntland
Dr. Said Abdullahi Deni oo isagu markii Puntland laga yimaado madaxweyne ahaan hadda madaxweynuhu waa reer Boosaaso si gaar ah dadkii halka ka dhoofi jiray buu ku jiray garoonka ciidda ka dhoofi jiray marka wuxuu og yahay dhibaatada ay garoon la'aantu leedahay runtii madaxweynuhu hawlgalkiisii iyo shaqadii ugu badnayd uu xoogga saaray in aeroboortkana dhismo maantana guushii aynu taagannahay in aeroboortku uu miro dhalo waxaan leenahay madaxweyne aad baa u mahadsan tahay inaan aeroboortka Boosaaso oo ballanqaadkan golaha wasiirada la hortagnay ahaa muddada aan joogno inaanu aeroboortkan dhisno inuu maanta aeroboortkii kambanigii dhisayay uu joogo lacagtiina loo shubay qayb ka mid ah sarfeygii dhammaaday qalabkii soo raran yahay bishan soo socota dhexdeedana xaflad weyn oo la dhagax dhigayo oo uu barakayn doono oo dhagax dhigi doono madaxweyne Dr. Said Abdullahi Deni aynu qaban doono aad bay farxad iigu tahay runtii dal haddii la rabo in horumarkiisa laga fakaro waxa ugu horeeya waa airport international inuu helo deked shaqaynaysa inuu helo iyo inuu koronto iyo ammaan helo koronto haddii la helo waxa suurtagelaya industrial in dalka warshado iyo la keeno maadaama Bandar Qaasim ay tahay magaalo ganacsi Maxamuud Yuusuf Caamir warbaahinta dowladda Puntland magaalada Boosaaso